Iiraan ma dhisaysaa hub nuclear mise dunida ayaa ka falcelinaysa wax aan weli dhicin daawade. Warbixin cusub oo ka timid hay'adda kormeerka nuclear-ka qaramada midoobay ayaa si lama filaan ah u beddeshay doodda caalamiga isla waqtigaas Shiinaha ayaa si toos ah ula hadlay Israa'iil. Maxaa socda dhab ahaantii? qaybta koowaad warbixinta IAEA. agaasimaha guud ee IAEA Rafael Grossi ayaa wareysi u siiyey NBC News ku sheegay ma aqoonsanin wax barnaamij hub nuclear oo nidaamsan oo ka socda gudaha Iiraan. taasi waxay si toos ah uga hor imaanaysaa eedeymaha ay jeediyeen Israa'iil iyo Mareykanka. laakiin sheekadu halkaas kuma dhammaanayso daawade. Iiraan waxay kobcisay uranium gaaraya 60kiiba. tamarta rayidka waxay u baahan tahay 3 ilaa 5kiiba. hub nuclear wuxuu u baahan yahay ku dhawaad 90kiiba. 60kiiba waa heer aad ugu dhow heerka hubka. Grossi wuxuu sheegay in keedka jira uu aragti ahaan ku filnaan karo in ka badan 10 madax oo nuclear. laakiin wuxuu si cad u yiri Grossi ma haystaan hadda maya. daawade farqiga u dhaxeeya awood farsamo iyo go'aan siyaasadeed ayaa noqday qodobka ugu muhiimsan. qaybta labaad xiisadda bariga dhexe oo sii kordhaysa. inta warbixinta IAEA ay dejin karto xiisadda, dhanka kale dalal kale ayaa ka walaacsan kobcinta 60kiiba. su-aashu waa haddii aysan rabin hub maxay u gaareen heerkaas. walaacaas ayaa sare u kacay iyadoo hadallo kulul ay ka imaanayaan Israa'iil, laakiin markaan quwad kale ayaa faragelisay. qaybta saddexaad Shiinaha oo soo galay. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi wuxuu qadka kula hadlay dhigiisii Israa'iil sida ay sheegtay Xinhua News Agency. Wang Yi wuxuu caddeeyey xoog adeegsigu xal ma keeno. Shiinaha wuxuu ku baaqay wadahadal iyo xabad joojin degdeg ah. Beijing waxay leedahay xiriir ganacsi istiraatiiji oo xooggan oo ay la leedahay Tehran. haddii dagaal qarxo danaha Shiinaha si toos ah ayay u dhaawacmi karaan. qaybta afraad maxaa dhici kara daawade. hadda waxaa jira 3 suurtagal: cadaadis iyo cunaqabateyn kordha ama dagaal goboleed oo qarxa haddii Israa'iil ama Mareykanka ku arkaan 60kiiba inay tahay khatar degdeg. wax walba si dhaqso ah ayay isku bedeli karaan. laakiin haddii Shiinaha ku guuleysto dhexdhexaadin, xiisaddu way degi kartaa. Iiraan ma ku dhowdahay hub nuclear? Shiinaha ma joojin karaa dagaal suuragal ah mise tani waa bilowga wejiga cusub ee loolanka awgeed? adigu maxaad u malaynaysaa daawade? kommentiga ku qor fikirkaaga. haddii aad ilaa ilmaadka nala soo gaartay daawade, ku salinayo sharafta Maxamed sallallahu alayhi wasallam. waa anigoo Abu Walad, waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim.